deeqdan oo isugu jirta cunnada dadka noocyadeeda kala duwan ayaa la gaadhsiiyey 1,200 oo qoys oo ka mid ah shacabkii abaaruhu saameeyeen ee ku nool tuulooyinka miyiga hoosimaada degmada Waangeeye ee gobolka Erara. Shacabka degmada Waangeeye ee la gaadhsiiyey deeqdan raashin ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen waxayna uga mahadceliyeen xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida iyaga oo dhanka kale alla ka bariyay inuu ka dulqaado abaarahan ku habsaday. marka koobaad waxaan u mahadcelinaynaa Ilaaha subxaanahu wa ta'aala ee qadaray in deeqdan la soo gaarsiiyo bulshadan tabaalaysan. marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa dowladda deegaanka Soomaalida. waxaan leenahay cid kasta oo bulshadan gargaar u fidisa Allah u gargaaro iyadana Allah u gargaaro. waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay kuwa mas'uuliyadda maartay halkan socota iyo xukuumadda saraba in intii la dareemo inuu shacabku abaaraysan yahay isla markaa ay jirto baahi aadannimo bini'aadantinimo haday tahay dhanka dunyada haday tahay dhanka dadka intay xukuumaddu dareento in ay juhdi iyo maskax iyo muruq iyo maalba ay ku bixiso inay soo aragto si dhab ana ula soo wadaagto bulshada baahideeda iyo dunyada waxa dalka ka jira in la soo arko aad baan ugu mahadcelinaynaa. Gudoomiyaha maamulka gobolka Erar Mudane Axmed Cali Xuseen iyo maariye ku-xigeenka wakaaladda dabagalka iyo taakuleynta shirkadaha horumarinta dawladda injineer Cabdi Fataax Xaaji Cumar oo ka mid ah gudiyada abaaraha iyo taakuleynta heer gobol iyo heer deegaan ayaa sheegay inay deeqdan raashin gaarsiin doonaan dhammaanba goobaha ay ku sugan yihiin shacabka abaaruhu ku habsadeen. 1,200 oo qoys ayaan maanta raashin u qaybinaynaa. raashinkaas oo isugu jira bariis sonkor bur boorash saliid waa raashin aad u noocyo badan weeye oo ka duwan waliba raashimadii horeen maalmaha soo qaybinaynay aad u fara badan noocyo badan leh yaan maanta qaybinaynaa. bulsho qabalayaasha ama tuulooyinka degmada hoos yimaada laga soo xulay oo dadkii baahanaha ahaa abaartu ay haysay yaan soo xulay. dadkii baan maanta halkan ku siinaynaa oo aad u badan oo 1,200 oo qoys ah. waxaan rajaynaynaa inay wax badan ka tarto maarta ay raashinkaas ka tiri doono abaartii haysatay dadkaas. dhanka kale saynu ognahay biyo dhaamkii waa saas oo kale oo socdo booyadii iyo wax dhan baa socda. marka waxaan leenahay waa jawaab degdeg ah oo xukuumaddu ay keentay. cid kasta oo ka qayb qaadatay raashinka iyo hawlihiisana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. bulshaduna aad iyo aad bay ugu farxday. waxaan leenahay insha Allah fayskan iyo fays labaad iyo fays kalaba waan suugaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. bulshadana waxaan leenahay raashinkaas si cadaalad ah oo sax ah yaa loo soo xulay saasaan ku qaybanaa insha Allah. cidda ayna maanta gaadhinna waan gaarsiinaynaa ma aha intana tii horeysay buu sii socon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. sida loo kala daran yahay baan u qaybinay inta u daran way inta maanta la siiyey haddii Ilaahay yiraahdo. fayska labaad ee soo socda haddana waa la gaarsiin qaybta kale maartay kuwa qaatana waxaan leenahay inay maartay kuwa walaalahooda ee deriska ah ee baahan ay wax ka siiyaan insha Allah oo ila maartay qaybsadaan shakhsiga oo iska dhigin wax kaliya la siiyey dadka walaalihii ee deriska inuu gaarsiiyaan rajayna oo la soo naxariisto. bulshadana waxaan leenahay si guud ahaan in la soo naxariisto oo laga qayb qaato la rabaa kamaal qabeenka iyo kamaarta qurbo joogta iyo kiila wax siiyaba nin waliba qofka walaalkii ee baahan inuu wax gaarsiiyo waa xilin kaaran baa lagu jiraa. xukuumad ahaan gurmadkan iyo mid lamida ayaa laga wadaa gobolka si guud iyo deegaanka goobaha ay abaaruhu saameeyeen. tan waxay muujinaysaa oo ay bilow tahay ka go'naanshaha ay xukuumaddu muujinayso in ay garab istaagto bulshada ay abaaruhu saameeyeen. shalay waxaanu ka qaybinay isla 686 qoys oo degmada Xamar ah. bari waxaan noo qorshaysan iyadana inaan kala qayb qaadano oo goobjoog ka noqono qaybinta isla caawimadan oo iyaduna ka socon doonta magaalada Laghido degmada Laghido. marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad barnaa inaan u xaqiijino in xukuumadda ay ka go'an tahay in ay garab istaagto dadka ay abaaruhu saameeyeen. dhankiisa gudoomiyaha degmada Waangeeye Axmed Nuur Mursal ayaa sheegay inay deeqdan shacabku baahi weyn u qabeen ayna wax badan ka tari doonto nolosha shacabka xilli xaadirkan. dadkaasi waa dadkii sii liitay dad yarta ahaa iyo dadka ay xoolaha ilaahayeen ay abaartu saameysay ee ku soo dhacay hadda tuulooyinka iyo degmooyinka soo galay.
marka run ahaantii raashinkan wuxuu ku soo beegmay xilli aad iyo aad bulshadu ay u tabaalaysnayd oo ugu baahnayd waxaan aad uga mahad celinaynaa xukuumadda xil isasaarka weyn u samaysay shacabkeeda ogaatay baahida iyo abaaraha ka jirta deegaanka marka anagoo taa uga mahad celinayna dawladda iyo dadka wax haysta ee iska kaashaday arrintan hantida iyo fikirka iyo socdaalkaba iskaga kaashaday ayaanu bilownay inaanu dadka gaarsiino gurmadka degdeg ah ee la soo gaarsiiyay waa raashin itamya leh sonkorta saliida burka raashin isku jira way marka itam walba sidiisii baa loogu talagalay xaafadihii loo gaarsiiyay waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaalida ee ku nool deegaanka inay la socdaan dadkooda abaarta iyo xaaladda tabaalaysan ay ku jiraan dadka qaran joogta iyo qurba joogta iyo dadka hay'adaha kala gedsan iyo shaqaalaha dawladduba inay iska kaashadaan xaaladda abaarta ee aad u culus waxaa jiri karta dad hoteelada iyo meelaha harka ka sheekeeya waxaan jirin iyo abaarta iyagoon laba soconin waxqabadka dawladdu ay waxqabatay socdaalka ay iyo ogaanshaha shacabkooda uga shahan dad dhaliil iyagu la fadhiya harka inay arkaan baa fiican baahida iyo dawladdu xil isasaarka ay saartay iyo baahida gurmadka mar walba lala soo gaarayo tan oo kaliya maaha biyihii baa dhanka socda daawadii baa socota Cabdi Kaafi Axmed Walias RTV degmada Waqay